السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما تدجوي إلهي باسكالي عاد بان هينا نبض بان كو غمانay galadna waan ku toosnay idinkuna sidoo kale barwaaqada ma gurataan garka subag ma gelisan geeli ma nidalay waa mar kale dulmidiid oo si kidisa idinku soo galay waxaan halkan kala wadaagayaa mar saddexaad iyo mar afraad ba intuu ilaahay daayaba inaan ummadayda Soomaaliyeed ummadayda afka Soomaaliga ku hadla meel kasta dogan iyo dadka sida xaqdarida loogu haysto jamhuuriyadda Djibouti halkan ka salaamaya inta gudaha joogtay inta dibadda joogta kulay hadal ma dhamaado waxaan mar labaad u soo noqday inaan halka ka bayaamiyo dulucda warkaygu waxay tahay sida tan kolka hore salaan guud marka xigtana waa dardaaran horta waxaan halkan ka salaamaya gudiga dibadba dadkaygii yaan ka salaamaya meel kasta joogan waxaan leeyahay ciisi iyo sharaf ku noolaada marka xigto waxaan leeyahay intii ila dhalatay yaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo marxuumada sida xaqdarida loo dilay marxuumada gudubta laga galay marxuumada waxba loola hadhin marxuumada ilaahay naxariista janna ka waraabiye silic lagu dilay leesku tagay lagu dilay waxay tahay ilaahay ka dhigay iyadu ma dooran dhulkana badile marka laga bilaabo shabeelay gubato oo nala dago bircasay nala degta maahinay sida uga bax hol dacasbiyo علي الصبيح مرحومة داي وحي كسو جدا دادك الدولك لرنتي دادك الدولك لي دادك السيدة حق داريدا ويمدي دادك الديفتو دا هايستا دادك الجنسيقو وكسو جيدو ودن كالسومالي لان ليراهو وحان سي بيانا وغشاقيا مرتدو مركي راكتو إني ماشي لادا يسكو هايستا dadkii horena waxay yiraahdeen inuu kuwa kugu yaala maayna oo kuwa lagu ag joogo waxaan si toos ah u abaarayaa ninkan mucangaga ee xitaa dadka ilaaliya aniga asxaabta ay ka mid yihiin qaarna aniga dhalo abti u ah qaarna asxaab baan ahayn intaana waxaan ka codsanayaa in Allah intay ka yaabaan xaqa ay u heeliyaan oo ay arkaan marxuumaday sababta ay ku dhimatay mawdku waa xaq qof walba uu maraya laakiin qof loo diiday dhiigeegu xinjira sameeyo loo diiday in laser dhuka la keeno loo diiday looga bacay dad aan dalka u dhalin haystaan passport diplomat ay haystaan oo ay ka dambaysa islaantan madaxu wuxuu uga dhiman yihiin niga gubanaysa markay arkaan ayna arag waar inaan noolaano ma ogola haweeneyda madaxu wuxuu uga dhiman yihiin meesha aad ku haysaan waxaan halkan aad uga codsanayaa inta aniga magacayga garanaysa Abdushakuur Abdullaahi Wabaqi Muusa Badiid Xasan war wallahi isma qaranay mugta wallahi baan ku dhaartay mugta inta isaga ilaalisa aniga waa walaalahay abtiyaaladay waa dadkaygi waxa ilaalisa moogtay gaalku dhalay fadlakum wa ahsanakum waxaan u sheegayaa ummadeena dibadda joogtay inta gudaha joogtaba waxaan ay gacanta qura farta quraana waxna kala qaadi kara ma jiro ninka un baan kala qaadi jiray islaanta cudur ku qabta cudur bay qabtaa aan dawo lahayn ilaahay baa og rasuulkiisa og halka maanta ay joogto garma qaadataday waxa joogi jirta Caasha Boqor qadasallahu ruuxo bijanna faran yadoo caloosheeda tagin bay dhimatay oo du jeegta naagta burcadka wadu jidin mugtay waxaan
intaa kaga baxayaa garmaqaadatada iyo arrimahooga yaan kaga baxayaa. waxa kaloon u soo galay waxa ay tahay waxa weeye waxaan idin sheegayaa idinku celinayaa meyd maxaa u dambeeyaa la yidhi xabiibi cabdillaahi waa baqi muusa yaa u dambeysay. ilaahay u naxariisto jannadii firdawsa allah ka waraabiyo. hadalku yuu u yaallaa kolkaa dardaarankaygusa muxuu yahay? wuxuu yahay inta aniga garanaysa, inta aniga muuqayga garanaysa, inta aniga ila soo kortay, inta aan isgaranayno caalamka waxa ay tahay waxa weeye kuma qaybtami karno gaalkan sida xaqdarida dalkeena u hantiyay iyo canaasirtan u shaqaynaysa ee aan damiir laawayaasha yayna isu keendirin baan leeyahay. yayna na kala qaybin baan leenahay. yayna dantooda nagu fishan baan leenahay. oo ku celinayaa alwaxda inkitino iyo midnimo intaa ma geeyaan ninka isaga ah iyo haweenaydiisa intay maalin salaameen, inta wax la cabtay, inta fikirka dumista dalkeena ka fikiraysa. ma rabnaa anagu waxaan rabnaa midnimo, waxba kama rabno. wax alla waxaan ka rabnaa haba yaraatee ma jirto. dalkan inuu jiro innagay danteena tahay. ina cumar iyo islaantan madaxu wax uga dhiman yihiin ee nacaybshaha ku seexatee ku soo toosta rabbigeen maahayne innagaa qaban doona. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nasiibkaa isiiyo ninka xisaabin doona inaan noqdo. wa rabbulkabca wa ilaaha macbuud baan ku dhaaranayaa inay shiina ku sheekayn. halkana waa la soo dhigi doonaa moogtahay. laakiin dalku muxuu maanta u baahan yahay? wuxuu u baahan yahay inaan ka wada hadalla meeshu ay tahay midnimo. ma hayaan iyagu waalidiinta sharafta leh ee la garanayo, ee hooyo leh, ee aabba leh, ee damiirkoogii iibsaday baan la hadlayaa. maanta anaa ooyey, aniga yaa ooyey, aniga walaashay may dhiman ee waa la dilay. waxa loo dilay waxa ay tahay baa lagu dilay, cidday tahay baa lagu dilay. fu'aad baa lagu dilay, deeqa ciisaa lagu dilay, aadan robla lagu dilay, muumin bahdoon baa lagu dilay, gabayo baa lagu dilay, ceelaa baa lagu dilay, yaasiin yaabe qadasallaahu ruuxu bijanna ayaa lagu dilay. ninka dee halkan sheeko kale ay ku guntan tahayow waxaan kuu sheegayaa war anigu aabbahay cabdillaahi bilbileef, hooyaday ayaday oo soo korisay ree culuw ahaa qadasallaahu ruuxu bijanna, intuba waxay ku dhinteen halka. anaale halka waan iman biyaantu hadduu iman car baan ku dhaartee car hadda waxay ka dhigantihiin garo iyaan ku dhaartee car yaa ii sheegan kara. car baan ku moogtahay ninkii dhoof ku yimid iyo geeridu dhibi. maalmo ka bacdi waxaan ballansannahay raadioga xaqa ee ummadeennu ay dhegaysato bukaaco. xafad allah, ilaahay xafidaan leh. ayaa ii ballansan inaan iswaraysanno wax kala qaadanno. dalkeennu waxa uu ku jiraa xaaladda uu ku jiro waa midnimo. nin caabud maaha. madaxweyneheennu wuxuu soo qabtay uu soo qabtay. islaantan madaxu wax uga dhiman yihiin. mawaantowdo sixir iyo baabsidato qabiilku adeegato ummadda layso. dadkii xasan guuleed ka soo jeeday bay ka tirtirtay dalka. aabaheen xasan guuleed abtidoon qadasallaahu ruuxu bijanna dadkii ka soo jeeday bay raaca soo eritay. iyadana hadduu ilaahay boqorradiisu haddii uu aqbalo sheekadeeda waad maqli doontiin. shakhsiyan yaan ka codsanayaa siyaasiyiinta dalka in lay xil saara aniga haddii eebaydha. waxaan halkan ka salaamayaa in allah inta maanta faatixada u maraysa fanaanada
fanaaniinta u dambeysay inta kale waa ambalatansiyon fanaanida u dambeysay nimca un baa nool ilaahay iyadana ha ilaaliyo ayaan ka codsanayaa ummadeenna meel kastay joogaan inaad faataxada u martaan aniguna ooyayaa waxaan u ooyayaa waxa weyn aniga walaashay wad ilaahay ma dilin khadra xayd iyo in cumar baa dilay waa wallaahi وبالله وطلّاه بانكو دارنيا هذا عيارني لتها إذنك بريبات كشيكين دون تينو ارتداد وحي نقول دون تامين ومضو أيلاد هاي وحق لغا الشيكين نقول دون تا ماها سيدي يغو إلهين ماها موقتا أنيغا كبردي إلى دالتاي ميدي من كسعد بالو دلي واحد دلين وحوين قرمقاتها madaxani ay wax uga dhiman yihiin iyo islaanta cadowtinimadeena ku seexatay ku soo toosta ayaa dishay waa idin ku celinaya mar dhow radio bukacan ka hadlay war waan imanaya hasa qeyrey soo dir Cabdilaahi Cabdi waayo anigu way garanaya Cabdilaahi balbaleef buu garanaya moogta ii soo dir aniga moogta waliman وان هضلي ويدا ما توحس جبوتي والنفر وحن الله هضلي يعني ولالكي إنك كلية إلى الدشي موقت وحن الله يهي هايلون وصنه فرسن نصر قوة هرتين افتين قوة هرتين ومدينا وحلبتا ومدينا وردنبا حريسانين مربنو mana yeeli doono waxaan leenahay dalkeena iyo qof dalkeena weyn naga tagaan leenahay moqto waan islaamaya meel kastoo joogtaan cisi sharaf ku noolaada duligeena diida assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh